ظبط أقول له سوا يعني كمان يلا سريع المطبن شيخ أنا لسه بعه شيخ مش بفتو بدأ على شيل جرايد سلامتك دمانتين كوبات على صوبته تلفونه أنا دور على بوسي اسمه هو يربع معي وحياة بدل ما رونينا عدينا أنا يولانك حريري يا عبد الدانتو كوبات إلهي بمهدله من الكوبات أيضا عينيا أصحاب قاري برنامج المقالة بعد وعبد وأقول ولا في عبد مرة بحكي وما سنتور ثانك يو أيه أنا دي أتصل وراك سبحان شيء والله يروح عيا يصير اللوف سريع عمل لوف سكور marka walaalkay sultaan sidoo sheegay khalad yar oo dhacay baraha bulshada si kala u qaateen wax dhib oo jirin wax dhib oo dhacay amniga naga aadayaa loo sugay dowladdu si fiican ay noo soo dhaweysay ciidanka amnigu si fiican ay noo soo dhaweeyeen khaladaad yar oo ka dhacay hoteelka ayaa si kale loo rogay wax dhib oo dhacay inaysan jirin dowladda sharafkeeda qaama mahaynaa isbaa mahaynaa si wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo bulshada xamar dhammaan qaybaheeda kala duwan si heer sare ay noo soo dhaweeyeen dad aan aad u jecel lahay farxadaan hayno jecel haweeneyna la soo joogayeen marka khalad yar oo dhacay in si kale loo fahmo maanta ma qurux badno markaas ماشي كلها لازم قلب لها ان شاء الله هنا اسكت غطر زي ولا في الحرير الكبار وسلامة الدمانتي حال برنامج بان الهيم سريعو علي قال برنامج كسوبر خليجي برنامج ساعات من الجنبي يخلي من الجنبي dad badan baa waxay leeyihiin in la soo weerarayo ayaga la target gareynayo iyaga in la dilo dad badan baa ku sheekeynaya weliba qolada social media waxyaabo badan inaad sumcada dad badan lagaga dilo wax yar oo kharash yar lagu helayo ama view yar oo helayso ama YouTube aad wax ka helayso in dadka sumcada looga baabi'iyo waa dadkii soo dhaweeyay ayagoo isku duuban waa dadkii soo dhaweeyay waa dadkii inaan xamar imaan ugu leeyahay waa dadkii amniga anaga nabadda ayada sugayay dad baa labis koorada la soo galay xabada la soo galay mashiinka wax baarayay hal shaqsi oo shacab biskoolada ma soo gelin wax aan la hubin ma soo gelin qof walba banaanka dhowr checkpoint lagu soo marinayay kadib mashiinka la soo mariyay meesha la isugu wada yimid marka xabada dhacday waxay ahayd askartii meesha joogtay hoteelka inaan kamida hoteelka amniga u qaabilsanayd inaan kamida xabad ka qaraxday ee xabad uu qof ku ridayna ma ahayn xabad uu wax ku leynaya ama annaga uu nagu tarbigelinayna ma ahayn meeshu jam bay noqotay dadkii baa soo buuxdhaafshay stagekii baa dadkii ay soo fuuleen waxaa dhacday in xariir uu heeska uu ku jira ay stagekii dadka ku soo yaaceen kadib markuu soo cayn inankii askarigaha ilaalada hoteelka iyo inan shacabaa isqabsaday markay isqabsadeen ayaa inankii shacabka ahaa ayaa inankii askariga ahaa bay isaga dhaafeen gacan qaad yar baa isu dhacay inanka askarigana wuxuu ku haystay biskoolad buu xagga dambe ku haystay sax maa cabdi ilaalada hoteelka ayaa biskoolad xagga dambe ku haystay biskooladda ammaankeedana wuu furnaa
markaa biskoolada markuu u foorarsaday dadkii kala qabay yiri ayay shaarkiiba inankii ka raacay marka biskooladiiba soo muuqatay inanka kala damcay malaha inuu shaarku u jiido samay marka wuxuu mooday in lagala baxayo marka gacantu ku dhuftay gacanta markuu ku dhuftay biskooladii inuu dhulka soo dhacday sidii bay ku qaraxday marka inankii askariga ahaa ee meesha joogay inankii askariga ahaa ee meesha joogay ayay isla asagiiba lugta kaga dhacday marka wax si kale wax loo fasilo ma ahan si kalena in wax loo dhigdhiga ma aha anagu cidna soo target garaysan ma jirto cidna soo waxaysan ma jirto taasaan u sheegayaa shacweynaha cabdi aan ku dhaweynayo waxa weeyaan horta siduu suldaan sheegay weeyaan siduu walaalka suldaan sheegay weeyaan xalay wixii dhacay wax weyn oo hadda saa loo sii buunbuuniyay ma aysan ahayn waxay ahayd wax yar oo khalad yar oo qof ma garanaysaa ka dhacay ayuu ahaa wax ku talagal oo dad soo abaabuleen oo dad ka soo shaqeeyeen ma aysan ahayn meesha amnigeeduna wuu sugnaa kale waxaan u sheegaynaa dawladdu sharaf bay leedahay ciidanka dawladdu ammaanka koray ilaalin horta wax ciidan gudaha ma soo galin dawladdu leedahay shacabun baa soo galay siduu suldaan sheegay hal shakhsi oo kamid ah ilaalada hotelka ayuu ahaa ninka biskoolada watay taasna aad ba loogama wareegay asaga qofka ka dhacdayna asaga ay biskoolada asaga ayayna ku dhacday isla asagan bay ku dhacday ha marka shacabka Soomaaliyeed waxaan cadeynaa fanaantan xafladii ay qabteen wax haba yaraata dadka shacabka soo gaadhay ma jirto oo wax ku noqdo annagana waa annaga nabad qabnay ayagina waa kuna nabad dadka social media ha beenta iyo propaganda ku wada ha joojiyaan baan leenahay waxa weeyaan markaas حرم نمط قطعات عارف نمط قطعات والله سيرت قطعات dadku waxay leeyihiin manaba qataaniya horta xabad ka soo waday ma ahayn xabad sidoo walaal soo sheegay haadhu ku dhacay kala meesha jaamna way ahayd dadka dawladda askarta amniga dhammaan shacabweynaha xamar karaama noo haynaa waa dad aan jecelahay waa dadkayagii waa dad si fiican noo soo dhaweeyey waa dad nagu dhaliyay inaanu sii joogno baraha bulshadu inay si kale ay u fasiraan ma qurxan waa meel nabad ah nabad baa taala wax yaroo ka dhacay ayay baraha bulshadu si kale u buubuunayaan qof yar ku helaya sida suldaan sheegay inuu dadka sumcadda ka dilo dawladda sumcadda ka dilo waa ka dhammi sumcadda ka dilo aad ayay noola farxin tahay mana qurxan markaas adoo yar helaya inaad dadka sumcadda u baabiso taasna barayaasha bulshada ayaa ku dhalacay daliishaan u jeedinaya حاويان مركز برنامج أبي كان يسوي هاي وضع وانبط سوق المستقبل حاويان مركز حمر عيلان فقدني إن نكبح نبض مر بس نقول دونا كل هيدا وضد قلب في عم وضد قلب وناسن وحضر عين وجه قدام شركة من القرى كان سوق يدي بتسوي كمان وجدان ما وحصل ويان هذا يا نصر يا شعب وحاول يمكن وانا وشتان كان دولد بايدين سو دوسي idin dajisay ilaa hadana si sharaf leh idin soo dhaweysay may dawladdu way mahadsan ilaa hadana ayaga u degan yihiin ma garanaysa marka dadka yaani luqluq ka soo galay amniga ayaga sugan laakiin in la yiraahdo dawlad iyo shacab wax la isku dhufto ma aha dawladdu sharaf ay mar walba naga mudan tahay iyadoo isku duuban anagoo shacabkana amaan iyo bogaadin ma u jeedinayna waa shacabka ayaga waa jecelnahay laakiin dadka sida khaldan wax u fasilaya waxaan leenahay walaalayaal ma fiicna Soomaali baan nahay isku dadwanahay in la iskala qaado ma qurux badna dad wada dhashay baan nahay dad walaalaha baan nahay aad baa mahadsantiin waa nabad qabnaa dawladda sharafta waa salaamina isku duuban shacabkana waa salaamina aad baa mahadsantiin dadka ayagii dalka ayagii waan joognaa dad baa wax kale ka sheekeynaya aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum hawshu waa halkaas bay maraysaa xaaladdu waa shibis ka dheh habaqle shibis ka dheh waxaa kaloo salaam yaa saaxiibkay cabdinuur maxaaye soo dhaweynta nada aad uga qayb qaatay asxaab kaloona halkan ku xusi karaynin oo aad u badan waxaa weeyaan aad iyo aad shacabweynaha xamar rabiic xamdu aad dadka haddaan halkan idinku soo tiriyo dee kama bixi karayo waxa weeyaan anaa mahadcelina dadka loo mahadcelina anaa ma ayada garanaya markaa ninkan liisa ku wareejinaya mahadcelin rabiic baan u mahadcelinayna walaalkii cambi oo idin wada garanaysaan isagana aad baan ugu mahadcelinaynaa ayadana walaashana muuna iyadana aad baan ugu mahadcelinaynaa iyadana kaalin muhiim ah ka qaadatay barnaamijka waxaa kaloo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay dawladda oo runtii si hagar la'aan uga shaqeynaa wiilashan walaalaheena oo dalkooda yimid garab taagan ilaa iyo haddana garab taagan oo heelan oo habeen iyo maalin la joogaan
waa mid taas xagga dawladdu wax oo shuud ma saarno sidii quruxda badneed loo soo dhaweeyay ilaa iyo had yartana soo dhaweynta u socoto xariir weyn ma ha dawladda gacanta ka haysa dawlad bay u degan yihiin nimanka YouTube-yada la niyo ilaahay naga qabto ma fahamteen nimanka YouTube-yada la oo balaayada karbiyada joojinaya oo shacabkii isku diraya dawladii iyo fanaaniinta isku keenaya ilaahay naga qabto ma fahamteen lacag fiican Allah siiyo oo ku iimaan qabaan marka dawladda aad halkan ugu soo special waxaan aad halkan ugu salaamayna maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan howlwadeennada ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha aad u salaamayna qososma oo hawshan wax badan ka shaqeeya marka halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa wixii kale billahi tawfiiq gadaal baan ka soo sheegi doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh